ورنتي إلهي سبحانه وتعالى يعني مهد علينا إنه عافمات قبنا هل كان سوق كان كيني runtii sida boorka muuqata maanta waxaan u dabaaldegaynaa sanad guradii saddexaad ee idaacadda Beerlula oo runtii kamid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Tanbeledweyn runtii maanta waa maalin qiimo leh waa maalin ugu weyn haddii aan nahay bahda idaacadda Beerlula maamulka shaqaalaha iyo dhammaan dhageystayaasha sharafta badan meel kasta ay dunida uga nool yihiin idaacadda Beerlula sidaan ognahay waxaa la furay 10 December ee sanadkii 2018 ujeedada loo aasaasay waxay ahayd in la helo idaacad ay bulshadu leedahay ku hadasha afkooda idaacadda Beerlula looma aasaasin in ay markaasi ka shaqeyso ama ka shaqeysato bulshada waxay u timid in uu u shaqeyso bulshada waxa ay idaacaddu ka kooban tahay radio iyo website iyo qaar kamid ah baraha bulshada sida Facebook, Twitter, Instagram iyo YouTube intaba idaacadda Beerlula waxa ka baxo ku dhawaad 40 barnaamij oo dhamaantood ku tacalluqa ama ku saabsan arrimaha bulshada isla markaana dhamaantood aan ka diyaarino magaaladan aan ku noolnahay iyo weliba deegaanada hoos yimaada saddexda sano ee idaacadda Beerlula furan tahay waxaan ku guuleysanay in aan saaxiib dhow la noqono ku dhawaad 500 oo kun oo dhageyste oo magaaladan iyo deegaanada hoos yimaado ku nool iyo kuwa kale oo ku nool caalamka intiisa kale oo isla markaana nagala socda internetka guulaha la taaban karo ee idaacadda Beerlula ay gaartay waxa kamid ah in kaalin muuqato aynu ka qaadanay duruufaha kala duwan ee ay soo martay magaaladan sida fatahaadihii iyo waliba wacyigelinta cudurrada ka dilaacay magaaladan oo ugu dambeeyay cudurka coronavirus oo ilaa iminka xaaladiisu ay taagan tahay waxaan xilligan ka dhex muuqanaa oo door muhiim ah aan ku leenahay biyo la'aanta ka jirto deegaanada hoos yimaada magaaladan iyo IDB-yada ku yaala magaaladan oo runtii xaalad haraad ah ay ka muuqdaan annagoo ka sameeyno warar iyo barnaamijyo si aan ugu xirno cid kasta oo caawin karto maadaama warbaahintu ay doorkeedu u yahay isku xir iyo baraarujin waxaana sidoo kale xoogga saarnay isdhexgalka nabadda bulshada iyo isboortiga iyo caafimaadka saddexda sano idaacadda furantaa sidoo kale guulaha la taaban karo oo aynu qarsoomi karin oo ay idaacadda Beerlula qayb ka qaadatay waxa kamid ah in aynu qayb xoog leh ka qaadanay qoysas danyar ah oo la caawiyay inagoo markaasi barbilow ilaa dhamaad la shaqeynayno qoysaskaas qaarkood waxaanu ognahay oo runtii cad in guryo xitaa loo dhisay waa dareemi kartiin hooyo xanuunsan aan lahayn caruur daryeesha in guri loo dhisay isla markaana ajarka ay leedahay ama aan ku yeelan karno waxaan sabab u noqonay oo aad marqaati ka tihiin in kaamam aan lahayn ceelal biyoodyo ay biyo ka cabaan aynu ka sameeyno warar kadibna lagu guuleystay inay helaan ceelal maantana ay haystaan biyo nadiif ah waana mid alla lagu mahadiyo runtii iyada laftirkeeda in anagu kaalintaas aynu qaadano waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqadaasi iyo kuwa kale oo aan halkan lagu soo koobi karin shaqaalihii qabtay oo aan dhihi karo waxa ay markaasi yihiin haliyeeyo mudan abaalmarin qaali ah runtii in lagu abaalmariyo runtii idaacadda Beerlula intaasi oo kaliya kuma koobno waad ogtihiin waxaan soo saarnay oo aan qayb ka qaadanay bilicda magaaladan runtii bilicda magaalada qof gooni u lama jirto qof kasta oo magaaladan u dhashay ayay waajib ka saaran tahay in magaaladan uu kaarintiisa ka qaato gurigaaga hortiisa oo aad qashin ka qaado waxay qayb ka tahay inaad bilicda magaalada aad ka shaqeysay runtii waxaan noo qorshaysan inaynu markaasi qaybtiyada ka qaadano wax kasta oo lagu horumarinayo magaaladan waxaana tusaale kuugu filan sida markaasi aan u soo bandhigno quruxda ay leedahay magaaladan oo darisamaadkii lagu yaqiinay runtii iyo dadka inta ugu badan ku xiran beejka siday uga falceliyaan waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo soo ajiibtay xafladan quruxda badan loogu dabaaldegayo la isku xasuusinayo lagu dhiirigelinayo shaqaalaha maamulka idaacadda Beerlula oo runtii kamid ah shaqaalaha aan dhihi karo waxa ay qabteen howlo la taaban karo
magaaladan iyo deegaanada hoos yimaada iyagoo runtii aanu ku qaadan wax markaasi dadkaasi iyaga dhib ku ah ama dhaqaale ah sidoo kale haddii Allana gaarsiiyo sanadka soo socda waxay noo qorshaysan in horumar intaa ka badan aynu gaarno waxaan u mahad celinayaa dhammaan taageerayaasha aynu leenahay oo la'aantood heerkan aynu gaarneen sidoo kale taageerayaashana ku sugan dalka dibadiisa ay nala soo wadaagaan hambaryada qaarkood iyagoo markaasi nagala soo wadaagay dhinacaas iyo internetka runtii waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo nagala shaqeysay horumarka aynu gaarnay oo maanta la'aantood aynu gaarneen waxaana sidoo kale noo qorshaysan in intaan iyo in ka badan sanadka soo socda aynu qaban doono haddii Allah uu dal qadaro waxaad ogtihiin in runtii goobaha waxbarashada oo runtii bahdii waxbarashada bay qaarkood hadda hortayda in ay runtii ay og yihiin waxaynu qaban mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u mahad celinayaa waqtiga oo kulaalay awgiis runtii dadka nagala soo qayb galay xafladan quruxda badan runtii maanta aan ku dabaaldegayno sanad guuradii saddexaad ee idaacadda Beerdura mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waqtiga oo ah waxa ugu fiican ee la isku hibeeyo waan idinka mahad celinaynaa